Assalaamu calaykum. Xiriirka ka dhexeeya isticmaalka badan ee social media, kalsooni darrada, iyo jeclaysiga noqoshada wax qof kale uu sameeyo ama uu jecel yahay waa mowduuca muuqaalka. Ku soo dhawow channelka Cilmi Baashe. Social media oo aan u baahnayn in sharaxaad badan laga baxsho ayaa noqday mid aad loo isticmaalo, waqtigana la iskugu dhaafiyo, laguna qanciyo nafta. Inkastoo isticmaalka social media una saameyn saas ah u keenin dadka badankood ee og dhibaatooyinka laga dhaxlo, haddana waxaa jira dad si xad dhaaf ah u isticmaalo ama u muuqato inay khasab ku tahay ku dhex jirka social media waqti dheer. Shirkad laga leeyahay Norway ayaa daraasadeysay cilmi baaristan. Ujeedada ugu weyn ee daraasadan waxay ahayd in la baaro xiriirka ka dhexeeya isticmaalka badan ee social media, kalsooni darrada, iyo jeclaysiga wax qof kale uu sameeyo ama uu jecel yahay, psychology ahaana loogu yeero narcissism. Waxaa daraasad lagu sameeyay 23,532 qof oo u dhashay waddanka Norway, da'doodana u dhaxayso 16 ilaa 80 sano. Kadib natiijada ayaa la soo bandhigay oo muujinaysa in dadka yar ee aadka u isticmaala social media aysan lahayn wax dhexgal bulsho ah, cilaaqaad wanaagsanna la lahayn dadka ehelhaan u dhow. Sidoo kale waxaa daraasada lagu sheegay in hoos u dhac weyn ay la kulmaan dadka caadaystay dhex fadhiga social media markay noqoto xagga waxbarashada, dhaqaalaha, iyo caafimaadka maskaxda. Arrinta kale ee daraasadan ay xustay ayaa ah in social media sida Facebook, Instagram, iyo Snapchat-ka ay kalsooni xumo iyo jeclaysiga noqoshada qof aysan ahayn ku keenaan qofka. Labadan arrimood waxay burburshaan nolosha qofka. Waxaad tuuraysaa shakhsiyadaada iyo wax walba oo aad ku fiicnayd inaad samayso, waxaadna u ordaysaa wax aad iska keenayso, taas oo hoos si weyn ugu dhigaysa wixii aad ka guulgaari lahayd. Waxyaabaha laga dhaxlo jeclaysiga inaad noqoto qof kale wuxuu yahay waxaa ka mid ah inaad u nuglaato oo si sahlan uga xanaaqdo kaftanka iyo hadal kasta oo lagu dhaho, iyo xitaa inaad weydo wax aad ku fiican tahay. Wax walba oo isticmaalkiisu bato, dhibkiisa ayaa badanaya. Xitaa biyaha aan cabno ee nolosheenu ku xiran tahay. Sida aan ku sheegnay muuqaalkii hore, waxaa lagu nooleeyaa maskaxda waa akhriska. Fadlan ku soo biir channelka, fiidiyowgana la wadaag asxaabta. Aad ayaad u mahadsan tahay.